dal kasta oo sameeyo horumar fiican oo dhinacyo badan ah waxa laga eegaa kor u kaca dhaqaalihiisa iyo sida loo maalgashado. Somaliland waa mid ka mid ah dalalka dhaqaalahoodu soo koraya isla markaasina suuqyada magaalooyinka aad ku arkayso dhalinyaro kala duwan oo ganacsiyo yaryar ka furtay magaalooyinka. haddaba carqaladaha ugu badan ee hortaagan in fikradaha ganacsatada yaryar ee reer Somaliland sameeyaan horumar weyn ayaa waxaa ka mid ah maskaxda bilowga ganacsiga iyo waliba fikradii u horeysay ee lagu bilaabay ganacsigaas in aan la isku qadarin oo la iska daba furto ganacsiga. waxaana indhaha dadweynaha ku cusbeen in ganacsiga Somaliland la iska daydo ama la iska daba furto. TV-ga Somali Cable ayaa haddaba arrintaasi warbixin ka diyaariyay. dhibta ay leedahay ganacsiga la iska daydo ama la iska daba furto oo marmarka qaar sababa in cidii ganacsigaasi bilowday suuqa si dhaqso ah looga saaro. ugu horreynna waxaan booqanay wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland. waxaan arrintaasi wax ka weydiinay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdirashiid Axmed Guuleed oo isagu faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha wasaaradda uga dejisan ganacsiga la iska daba furto. waxa weeyaan xeerkaasi hawlgalkiisa wala diyaariyay imika xeerkaasi waa iska u dhameystiran yahay. waxa weeyaan waa xeer jira waxa la yiraahdaa xeer lambar 26/2004. waxaan doonay markaa xeerkaasi sidii loo hirgelin lahaa mar hore ayaa la isku dayay qayb ka biyo ka fulay imika laakiin waxa rabnaa dhamaystirno xeerka haddii la yiraahdo oo la kala xadeeyo oo qof walba ku ekaado muxuu ahaa ganacsigiisu xadka awleegiyo qof walba ku ekaado la kala xadeeyo. wana hawlaha aan ku tala jirno inaanu bilaawno bishan imika 20keeda wixii ka dambeeyay inaanu bilaawno si ay u hirgalo hawlahaas oo dhani. marka intii hore waxaan u diyaarsanaynaa qaabkii loo gali lahaa iyo sidii loo gali lahaa waxaas oo dhanba hawlahaas la ku jira. rugta ganacsiga Somaliland waanu dadaal badan ku bixinay sidaan iyaguna arrintani wax uga weydiin lahayn isla markaasina dadweynaha wala wadaagi lahaayeen qorshayaasha uga meel yaala ganacsiga la iska daydo ama la iska daba furo. ayaana noo suurtagelin waxaanay mas'uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Somaliland noo sheegeen in aan diyaar u ahayn in arrintani ka hadlaan waqti xaadirkani. qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Hargeysa ayaa iyaguna aragtidooda ka dhibtay ganacsiga la iska. waxaan ka shaqeeyaa qaybta muraayadaha baabuurta oo markay muraayada gaariga weebartu markay xoqdo waxba la gaarki waayo ayaan sideedii ka dhigaa originalkeedii. haddaba waxa soo baxday Somaliland qaybo wixii baan qof la soo baxayaa wixii markuu qof la soo baxayo qof kale wixii ka daba keenaya qofna wixii saan ma ilaashan karayee waa yaan xaasid bay macnaheedu sidaas u dhigantay moogti. horta markaan Somaliland joogno heerka shaqalaanteenu inkastoo ay badan tahay haddana waxay ahayd in central government-gu ay sameeyso mashruuc maalgelineed oo dhalinyarada hal abuur kale ama barnaamijka maalgelinta dhalinyarada oo ninka dhalinyarada la yimaado mashruuc loo maalgeliyo. meel baan jirin aan ku ganacsano shaqaabuurna noo bilaabay la leeyahay marka hore shaqaabuurna ma hayno waxaygan waa ganacsiga maalin bixin ugu tabaxay ilaahay banaga tiyo laakiin waxaan doonayaa in dawladdu meel soo meelaan ku ganacsano damba shaqaabuur shaqada naato marka la midahan doynaba shaqaabuur kala shaqada naatade ayaan sameeyay dawladda marka ganacsigeena waxa marka ugu research ganacsigan marka magaalada mid iyo laba ka furay midna magaaladu ku soo farabateen dhowr ilaa 20 bay marayaan meel walba marka waxaan oran lahaa ganacsiga in kala bedesho qofka fikrad uu keeno ganacsi gaar ah insha Allah ku shaqeysto qof oran dunida kale waxa la kala iibsadaa fikradaha kala duwan ee lagu abuurayo ganacsi cusub kaasi oo meel mara. Somaliland hase yeeshee taasi kama jirto oo ganacsiga waa la iska daydaa qofkii maskaxda lahaana looma tixgeliyo cidii doonta ayaa kiisi oo kale furan karta. Cabdi Fataax Ismaan, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.